Waa maxay khilaafka ka dhexeeya Boran iyo Cherkotay? Muxuu Calaa'ad-Diin u doonayaa inuu isaga tago qabiilkiisa? Ma dhab baa in Sofia ay doonayso si xaqiiqo ah in Cusmaan ay ugu wareejiso gabadhiisa Xaliima? Maxaa ku kalifay Claudius inuu baabi'iyo ciidamada Cusmaan mar kale? Sidee ayayse noqon doontaa jawaabta uu ka bixin doono Cusmaan? Maxayse tahay qalbi-jabka Cusmaan iyo Bala hadda dhex maraya? Daawade intaa iyo in ka badan ayaanu ku ogaan doonaa muuqaalkeena maanta. Maxay Sofia ugu sheegtay Xaliima in xagaaga soo socda ay geeriyoon doonto? Intaa iyo in ka badan waxaanu ku ogaan doonaa muuqaalkeena maanta. Fadlan haddii channelka cusub tahay subscribe noo saar hore haddii noola joogto muuqaalkeena la garay daawade. Aad iyo aad ayaad noo mahadsantahay intaynaan guda gelin muuqaalka ka horana ku saliya xabiibkeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Hadeerna si toos ah inuu gudagalna muuqaalkeena maanta. Waxaa arkaynaa markaasi ninkii Calaa'ad-Diin ahaa goosgooska wuxuu ku bilaamayaa isagii iyo Orhan oo wada sheekaysanaya. Hadaladoodina waxaa ka mid ah markaasi in Calaa'ad-Diin uu yidhi si aabaheena xasilooni iyo nabadgelyo u dareemo waxaa qasab ah labadeena midkii inuu qabiilka isaga tago si markaasi dhibaatada aan isku hayno markaasi ay u zuusho. Calaa'ad-Diin ayaana ah markaasi qofka go'aanka qaadanaya oo na dhahaya anigaaba baxayaba. Halka Orhan uu dhahay Calaa'ad-Diin laakiin isaga wuxuu leeyahay markaasi xuduudka ayaan goynayaa waana sii soconayaa waana ka tagayaa halkan ayuu leeyahay aniga dhibaato haddii ay markaasi ay ugu qabtaan waa kala fogaanayaa. Waxaasoo dhanna waxaa u sameynayaa markaasi ayuu leeyahay nabadgelyada aabahayga dartiisa maxaa yeelay anigii adiga halkaan ma isla joogi karno. Qasab waxaa labadeena midkood inuu baxo markaasi halkaani xasilooni iyo nabad loogu sii noolaado. Intaa kadibna Calaa'ad-Diin alaabtiisii ayuu xirxiranayaaba. Waxaa arkaynaa isagoo macsalaameynaya hooyadiisa halka xaaskiisana aad ay u murugeysneed sidoo kaleetana ay oynaysay. Hooyadiisana waxay isku dayaysaa markaasi inay celiso laakiin ninkaani wuxuu sheegay inuu hore u sii soconayo isna dabari kara ilmana uusan ahayn isla mar ahaantaasna dhabaha saxda uu sii qaadi doono xuduudkana uu jari doono. Bal wixii afkaartiina idinkana aad ka qabtaan dhanka hoose comments-ka ayaa daawadayaan nagula wadaagi kartaan. Dhanka kale ninkii Boran ahaa ayaa waxa uu leeyahay qofkii mar inuu shahiida ka cararaa run ahaantii mar walba ayuu carari doonaa. Hadalkaasna waxa uu kagala hadlayay markaasi ninkii Cherkotay ahaa. Labadan ninna khilaafkooda waxa uu dhashay markii ay isdagaaleen Calaa'ad-Diin iyo sidoo kale ninkii lagu magacaabayay Orhan. Maxaa yeelay Cherkotay Calaa'ad-Diin ayuu la safnaa. Boranna waxa uu Cherkotay ku eedeynayaa inuu ka cararay markaasi inuu shahiido isla mar ahaantaasna uu geeriyoodo. Marka sidaas darteed asaga laftirkii fuleynimo ayuu ku eedeynayaa. Marka sidaas darteed ayuu u leeyahay qofka mar ka carara markaasi inuu shahiid noqdo noloshiisa inta ka harta mar walba waa uu baxsanayaa waana uu cararayaa. Arrinkaas ayuuna ka caroonayaa ninkii Cherkotay ahaa. Waxa uuna markaasi ku leeyahay ballan waxa ugu ah Boran hadalkaba inaan kugu celiyo mar dambe aadan hadlin waa ku ciijinaya ayuu leeyahay. Isagana markaasi waa la kala qabanaya labadooda waan la soo kala dhexgalaya dagaal ayaana markaa dhexdooda ka dhalan sida arkeyno. Nimankaana dagaalkooda waxa kaliif wax kala maahan mahaas buu ka dhashay. Dhanka kaleeto naagtii Bigume xalqadii la soo dhaafaanan lagu daawanin ayaana aragnay iyadoo la hadlaysa nin ay dhahayaan Koraal oo markaasi ciidamadeedii ka mid ah. Waxay leedahay markaasi anaga dagaal baa ina anfacaya Koraalow waa inaad dagaalanaa dhanka kale waa inaan soo ceshanaa qabiilkeena kaasoo hadda Cusmaan uu gacanta ku haasto. Gabadhaana aad bay u oynaysaa maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay gaartay fariintii ahayd in walaalkeedii Yuusuf uu geeriyooday. Waxayna dheeysay waxaanan dagaal ahayn anagan anfici maayo waa inaan dagaalanaa qabiilkeenana markaasi aanu ka soo ceshanaa Cusmaan. Aad bayna u xanaaqsaneyd sida wajigeeda laga dareemi karo waana ay oynaysaa markaasi. Dhanka kale ninkii lagu magacaabayay markaasi Olokjari abaanduulihii Mongooliska ahaa isagoo oo la hadlaya markaasi ninkii Claudius oo wada sheekaysanaya hadaladiisa waxaa ka mid ah markaasi Olokjari inuu dhahayaba haddii aanan qaadanin markaasi diyadii uu dalbaday Oljaito Khan aynan ka kaxaynin halkaan diyada Oljaito Khan rawan wax kala maahan waa Cusmaan in wiil iyo gabar markaas laga kaxaystay. Wuxuu leeyahay markaas haddii aynan arrinkaas aynan sameyn run ahaantii ninka Oljaito Khan lagu magacaabo madaxyadeena ayuu guri doonaa anaga ayuuna dili doonaa ayuu leeyahay. Marka sidaas darteed waa inaynu dagaalanaa. Ninkan lagu magacaabo Claudiusna waxa uu baabinayaa markaasi ciidamo Cusmaan uu iska lahaa
wadada ayuuna u gelayaa isagoona dad badan meesha ku dilay ayaan arkaynaa. Dhammaantoodana meesha ayuu ku baabinaya kadibna abaanduula Koja ayaa meesha imaanayo isagoona dhahaya markaasi dadkii yaa soo weeraray, waxaan doonayaa in la ii sheego magaca qofkii dadkii soo weeraray. Intaa kadibna waxaa loo sheegayaa waxa sidaan sameeyayba in uu yahay ninka lagu magacaabo Claudius. Ballan waxa uu leeyahay isagana markaasi jirkiisa inaan kala siibo ninkaasi mana sii deynaya ayuu leeyahay, halka Claudiusna meesha uu sheena iyo balaayo u joogay. Dhanka kale waxaa arkaynaa ninkii lagu magacaabay markaasi abaanduula Koja ayaa baxaya wuxuuna u tagayaa Cusmaan, wuxuuna ku leeyahay markaasi Claudius ayaa ku sugaya goobtii ciidankeena hadda ka hor uu ku baabiyay ayuuna kugu sugayaa isagoo awood fara badan haysta, ciidan fara badan haysta. Run ahaantii haddana waxa uu leeyahay abeysooyinkii waa inoo midoobeen. Cusmaanna waxa uu leeyahay markaasi waynu baxaynaa waana aadaynaa meesha uu isaga joogo, waxaana soo siinaynaa ayuu leeyahay waxa uu doonayo. Dhiig oo kaliya ayuu rabaa, dhiiggaas ayaana maanta soo siinaynaa. Intaa kadib waxaa arkaynaa Bala oo iyadana la hadlaysa ninkii Cusmaan ahaa. Hadaladeedina waxaa ka mid ahaa in ay ku dhahday maanta adiga kaliya kamaadan quusanin markaasi gabadhaada Xaliima iyo Calaadiin, xitaa aniga hataa Cusmaan waad iga quusatay ayay leedahay markaasi. Cid aad doonaysana ma lahan ayaa filaya. Sidaa darteed waxaa arkaynaa Calaadiin oo markaasi u sii baxayo oo doonaya inuu baxo, kitaabkana dhunkanaya halka gabadhii Xaliima ahaydna iyadana markaasi faras ay saaran tahay. Intaa kadibna Cusmaanna jawaab hadal waxa uu uga dhigayaaba aniga aabbo oo kaliya maahi, midaas ayaad ogaanaysaa oo reerkiisa ka taxadarayo sidoo kale tanin waxaan ahay sayid ah amaba hogaamiye ah. Maanta waxaa dhici doonta ayuu leeyahay maalin oo qalbigaaga sidoo kale dhaawicmi doono ayuu leeyahay, oo qalbiga aad ka dhaawicmi doonto maalin noocaas oo kale ayaa sidoo kale imaan doonto. Marka goosgooska sidaas ayuu kusoo idlaanaya oo ku dhamaanaya. Laakiin waxaan fahmaynaa markaasi gabadha booyineed markay faraska saaran tahay in Balana ay u jeeday oo ayna arki doonto markaasi gabadhii Maryan ay u aqaan jirtay oo ciidamada dharka Byzantiniyiinta xiran inay arki doonto, taasoo ka dhigi doonto inay ogaan doonto gabadheeda cid ay tahay. Ama Sofia madaacad bay ka tahay inay doonayso markaasi inay ku soo wareejiso Bala iyo Cusmaan gabadhooda. Taasi run ma ahan, waxay doonaysaa kaliya inay iyaga ku disho. maxaa yeelay xalqadii la soo dhaafay ayaanba ku daawanayba iyadoo kala hadlaysa arrinkaasi ninka lagu magacaabo Claudius, iyadoona dhahday Cusmaan iyo Bala gabadhooda saxda ayaan ku dili doonaa. Marka saas oo ka dhigan markaasi in aysan naagtani warkeeda xaqiiqo uusan ahayn, doonaysana markaasi inay Cusmaan iyo Bala shaqooso sidaasina ay ku disho. Ujeedkeeduna waa intaasi. Haddaba Bala naagtii lagu magacaabay marka Sofia iyada ma geeriyoon doontaa. Sofia xalqadii la soo dhaafay markay u soo suuroonaysay gabadha Xaliima lagu magacaabo ee runta u sheegaysay ayay markaasi u sheegtay inaysan wax rajo aysan ka lahayn markaasi inay ilmo dhali doonto. Sidoo kale tan dhiig ayaa markaasi ay soo qunfacday oo ay soo matagtay. Marka sidaas darteed gabadhan ayaa weydiisay waxayna ku dhahday habar yar adiga dhiig ayaad mantagaysaa sidee wax u jiraan. Iyadana waxay ku dhahday ha aniga waan xanuunsanahay gabadheeda. Runaantii waxaa ka sii xumaa waliba anigoo cadowgayga dilin inaan geeriyoodo. Anigu wax ilmo dunida kumaanan yeeshan oo farac iga dambeehay ma jiro, laakiin waxaa ku faraxsanahay gabadheedii in adiga gabadheeda ta aan ku soo korsaday. Umana arka markaasi in aad tahay markaasi cadowgayga dhiigiisa waxaanba ku arkaa sida gabaraan dhalay inaad ba adiga tahay. Dhaqaatiirtan anigu waxay ii sheegeen cudurkii hay inuusan daawo lahayn. Xagaaga soo socdana waxa macquul ah inaan geeriyoodo ayay leedahay. xagaaga 2 bilood meelahaas ka dhimanaa maleynaa. Marka sidaas darteeda Sofia filimka waxay ka baxaysaa sida u badan tahay marka 2 bil taana dhamaadkiisa adiga bisha 2 bil kadib meelahaas oo kale filimka markuu soo dhamaanayo cuduraba dil rabo taa Cusmaan goormuu dilaa horta. mideeda kale Sofia waxa uga shakisana aniga inuu dili doono aakhirkeeda ninka hadda yimaaday ee lagu magacaabo Claudius. Sofia iday soo wanaagsanaato oo qof fiican hataa ay noqon lahayd taa ninkan baa dili doono aakhirkeeda. midaas laga qoro aniga waa iska sii dhahayaa hadalkaas hadeer maalin inay suura gashaa laga yaabo. ninkii aabaheeda qiyaano waay iyadan inuu qiyaana suura gal ah isla marhaantaasna ka uu ka siiyo Sofia. uma leeyahay Sofia in Cusmaan ama Bala labadaas mintood gacantood ay ku bixi doonto. bal adinkana midaas meel loogu qoro maalinkeeda markay la gaaraan isla fiirin doonaa. laana Sofia maba uu ekaba qof ay Cusmaan iyo Bala ay dili doonaan, laana iyaga gabadhooda ka haysataa gabadhooda u soo korisay intaan la soo ekeysay maalin way ka murjisay haddana maalin kale ka farxisay. marka ninkan Claudius lagu magacaabo in maalin uu markaasi labadooda isfahmi waayaan sidaas darteedana
naagtan asaga uu dili doono ayay u badan tahay maadaama Sofia wax badan ay soo baashaashay. dhanka kale Bigumna diyaar u tahay markaasi inay u aarto walaalkeeda qabiilkeedana soo ceshato. wixii intaa ka badan oo akhbaaraadana muuqaalada dambe ayaa idin kula wadaagi doonaa. Cusmaan iyo Baala xitaa xoogaa colaad yar ayaa dhexdooda kasii abuurmi doonto. runtii khilaafkii Calaadiin iyo ka dhex abuurmay Orhaan wuxuu saameeyay reerka dhan. ciidamadii ayuu saameeyay waa Jarkuta iyo Booraan oo abaanduuriyaashii weynaa ah madax isku jiraan arkaysa. Cusmaan iyo Baala oo dhaawac qalbiyadooda soo gaaray arkaysa sidoo hore iskugu fiicneen. kulli muuqaalka intaas ku soo afjaraya wixii faahfaahin ah dhanka hoose comments-ka nagula wadaagi kartaan. intaan ku kulmi doono muuqaalkiisa waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.